magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxa lagu qabtay barnaamij loogu tacsiideynaya Rabbi naxariisti janno ha siiye Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax. barnaamijka tacsiidaasi oo uu direeyay madaxa hay'adda isku xirka culimada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ahna imaamka masjidka Daarul Hijra Sheekh Cabdiraxmaan Shariif Maxamed. Sheekh Cabdiraxmaan oo tacsiidaasi u direeyay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehladii iyo qaraabadii uu ka baxay Sheekh Cabdulqaadir waxa uu yiri بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hor galbeed iyo liibaan aad baad mahadsantihiin inaad igu timaadaan idinka oo TV-ga qaranka ah xafiiska masaajidka Daarul Hijra marka labaad waxaan halkan uga dariyaa tacsi tiiraanya leh oo naxdin leh anigoo ku hadlaya magaca hay'adda isku xirka culimada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka heladii iyo qaraabadii iyo ummadii Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax sheekhaas xaqiiqatan dadka Soomaaliyeed ay ku yaqaaneen diin akhlaaq wanaagsan iyo inuu in fara badan dadka maslaxadooda iyo danta caamka ah uu uga hadlo waxaan aad iyo aad aan uga xunnahay geeridaas ku timid ee aadka u fooshaxun sida aan akhlaaqda iyo diinta midna waafaqsanayn sheekhaas maxaa loo dilay waxaan se ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala sheekha inuu jannadiisii firdawsaad uu ka waraabiyo ehladii iyo qaraabadii iyo shacabka Soomaaliyeed uu ka baxayna samari iimaan iyo badal khayr qaba inuu ka siiyo yaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala madaxa hay'adda isku xirka culimada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ahna imaamka masjidka Daarul Hijra Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ereyadiisii sii wata oo ka hadlayay dilka loo geysto culimadu inay yihiin wax aad u foolxun adduunyo iyo aakhiraba waxa ereyadiisii kamid ahaa xaqiiqatan dilka qofka muslimka ah la dilo diinta islaamka meel adag bay geysay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannam ila marka aad ay sii socotay oo qofkii qof muslima si kasa u dila abaal markiisu waa jahannamo weeyaan jahannamo markii la galiyo uu ku waaraya markii jahannamo uu ku waaro ilaahay baa lacanadaya subxaanahu wa ta'aala lacanada waxa uu sii dheer oo kaleeto cadaab aad iyo aad u xanuun badan ayuu rabbi siinaya subxaanahu wa ta'aala marka qofka muslimka dilkiisu waa sida markii uu qofku caalim yahay qofkii bulshada indhaha u ahaa uu yahay qofkii bulshada wax taraya uu yahayna way ka sii xag jirtaa marka guud ahaan dilalka noocan oo kaleeta ah ee dadka waxgaradka ah bulshada ha noqoto culimada ha noqoto dhakhaatiirta ha noqoto injineerada ha noqoto muxuu ahaa dadka muxuu wax baranaya oo ardada jaamacadaha ha noqoto dadka xataa salaadiinta cuqlada ah lagu beegsanayo dilkaas isagoo dil waliba uu xaraam yahay uu ka sii dambi badan yahay uu ka sii falxuma badan yahay uu ka sii akhlaaq xun yahay maxaa jira indhihii bulshada ayaa muxuu ahaa la baabi'inaya indhihii bulshada ayaa la rabaa in la dabar gooyo arinta marka waxay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed wada jirta culimadeeda iyo waxgaradkeeda iyo dadkeeda akhyaarta ah inay isweydiiyaan wardhibkan maxaa keenay maxaa looga bixi karaa maxaa jira xaqiiqadu waxa weeye waxa la yiraahdaa ummadu dhib ay ku jirta kama baxdo ilaa ay garato dhibka goorta gashay iyo say u gashay marka waxa muhiim ah inaan isweydiino wardhibka noocan oo kaleeta ah dilka noocan oo kaleeta faashaxun ee waliba magaca diineed la adeegsanayo ee magaca diineed la isku baabi'inayo ee maanta ay soo gaadhay meelaha ugu amni xun Soomaaliya inay ka mid tahay masaajidu oo qofku uu salaadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu jamaaca ku soo tukan lahaa uu cabsi ka qabo ma gudaha masaajidka lagu dilayaa ma iridiisa lagu dilayaa adoo sii baxay ama adoo soo galaya heerka in ummadii la gaarsiiyo oo waliba dadka waxa sameynayaan ay magac diinad adeegsanayaan xaqiiqatan waa ayaan daro aad iyo aad u falxun weeyaan waa arin loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed marka culimadeeda iyo waxgaradkeedu intay isweydiiyaan inay yiraahdaan war dhibkan xageebu inaga yimid goormuu inagu yimid see looga bixi karaa in su'aalaha la isweydiiyo ayaa muhiima haddii kale waxaad moodaa wax soo noqnoqonaya oo inay noqonayso maxaa jira dilka Sheekh Cabdulqaadir waxaan ognahay dilkii koobaad ma aha culimo fara badan oo kaleeta ayaa la laayay ama ha lagu laayo koonfurta Soomaaliya ama ha lagu laayo gobolada dhexe ama ha lagu laayo Puntland ama ha lagu laayo meelo kale oo laga yaabo Soomaaliland marka ma aha dilkii ugu horeeyay waxa kaleeto aan ognahay oo rabnaa inaynu tilmaano ma aha dadka khiyaarta ah waxgaradka ah layntoodu tii ugu horeysay ma aha marka arinta waxaad moodaa bulshadu inay si sax u qiimayso si sax isu weydiiso war dhibkan xageebu inaga yimid si looga bixi karaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif Maxamed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dilalkan loo geysanayo culimo diinka suxufiyiinta indheer garadka aqoon-yahanada
marka ugu horeyso waa maxay baad isleedahay waxa sababi kara ee keenay bismillaah alxamdulilah muxuu ahaa shariga galbeedka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaan laga yaabaa asbaabo fara badan kadu inay keeni karaan laakiin mid ugu muhiimsan waxa weeye qofka oo fikriga ama maskaxda wax khalad lagaga shubo taasoo macnaheedu uu yahay qofka in loo tusiyo bulshadu inaysan muslim ahayn asaga mooyaane ama bulshadu inaysan muslim ahayn asaga iyo groupkiisa iyo inta uu markaa isagu la fikri ah mooyaane taas weeye midda ugu badan oo keenaysa waxyaabahan oo kaleeto haddii qofka uu la baro ku qanacsan yahay guud ahaan bulshadu inay muslim tahay haba kala duwanaato looyaradeeda dhakhaatiirteeda muxuu ahaa dadka xukuumadda ku jira baarlamaanka shacabka caadiga culimada kala duwan haddii uu qofku ku qanacsan yahay inay muslimiin yihiin xataa haddii la iskhilaafo qofku dadka dhiigooda ma banaysanayo mushkilada marka waxaa asal u ah dadkan mushkiladan hadda samaynaya dilalka noocan oo kale samaynaya waxay qabaan jiro maskaxi ah oo ah inay iyaga kaliyuhu muslimiin yihiin ama muslimiinta saxda iyaga kaliya inay yihiin dadka intooda kale inaysan muslimiin ahayn ama islaam sax ayna haysanin taas marka waxay keenaysaa inuu qofku uu ku fududaado ama u sahlanaato qofka dhiigiisa inuu banaysto arrintan marka taariikhda dib loogu noqdo xaqiiqatan ma aha wax hadda bilowday waa wax waa hore soo bilowday oo nabiyullaahi maxamed oo nool calayhi salaatu wasalaam ayay soo bilaabatay marba meel bay soo gaaraysay innaga lafteenna marka la fiiriyo taariikhdeenna ma aha waxay nagu bilowday 5 sano ama 6 sano la soo dhaafay qofka si fiican u fiiriyo taariikhda Soomaaliya wuxuu arkayaa 20 sano ama 30 sano ugu dambeysay marar fara badan dilal qorshaysan oo magac diineed wata oo la fulinayo inay jiraan arintaas marba marka say meel u soo socotay ayaa waxay soo gaadhay maanta meesha ay joogto oo aadka u sifaalka xun oo aadka u si ayaan daran marka waxa keeni kara waxa weeye aniga kaliya ama majmuucadanada ayaa muslima dadka intooda kale muslimiin ma ah taas marka u sahlaysa qofkii inuu kan tukanaya gaal buu u arkaa kan uu ka soo baxaya salaada masaajidka gaal buu u arkaa kan sii galay masaajidka gaal buu u arkaa kan baarlamaanka ku jira gaal buu u arkaa madaxweynaha gaal buu u arkaa wasiirka gaal buu u arkaa sheekhan isaga afkaartiisa khilaafsan gaal buu u arkaa jamaacada kale ama ururka kale tan afkaartiisa ku qanacsanayn gaal buu u arkaa marka bulshada oo dhan waa wada gaalo annaga ama majmuucadanada mooyaane sidaas uu qofkani rumaysan yahay taas marka waxay ku dhiirigelinaysaa dadkan dhan ku janno tag marka dilkooda marka ilaahay ugu dhawaanay suu rumaysan yahay qofku taasuna waxa weeye waa ayaan daro u baahan si sax ah in culimadu ay tasxiix mafaahiima u sameeyaan qaabkii tarbiyada wax loo tarbiyeeyay dib la isu weydiiyo qaabkii dadka wax loo bariyay dib la isu weydiiyo wixii dadka la bariyayna dib la isu weydiiyo intaas oo dhan imaam sheekh cabdiraxmaan waad mahadsantahay waxa aad tahay madaxii hay-adda isku xirka culimmada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka maantana halka dhibku uu ka jiro dad badan oo jaaliyada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed waxay leeyihiin culimmadayadii way aamuseen dhibka aan la ildaranahay iyo dhibaatooyinka qaraxa iyo dhibkoo dhan culimmadayadii way ka aamuseen fikradaas iyada ah seed u aragtaa dilalkan iyo dhibkaana sideed u aragtaa in xal loogu heli karo su'aasha culimadu way ka aamustay arintaas sax ma wada aha anoo kale markaan tusaale isaga soo qaado idinkuna aad marxaati ka kacaysaan markuu dhacay qaraxii ugu horeeyay taqriiban hadda intaan xusuusana dhowrkii sano ugu dambeysay la qaraxiyay hoteelkii ku yaalay Baladweyne ay ku dhimanaysay dadkii saraakiishii dawladii muxuu ahaa Sheekh Shariif iyo dad fara badan oo shacab ah waxaan ahaa dad qofkii jeediyay muxaadaradii aan u bixinay shabaab ka hor baan muslimiin ahayn markaas inta wixii ka dambeeyay qarax kasta oo la geysto oo magac diineed lagu geysto waxaan sameynayay aniga iyo culimo fara badan oo kale inaan ka hadalno oo si adag u naqdino dhahna waxaan islaamka lug kuma leh diinta ilaahay way ka soo horjeedaa subxaanahu wa ta'ala waxaan sheegaynay qofkan dadka isku qarxinaya iyo qofkan muxuu ahaa bamka dadka u dhigaya iyo waxaan oo dhan inay tahay wax naaru jahannama lagu galayo maxaa jira wuxuu nabigu ilaahay sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa qofkii naftiisa dila wuxuu isku dilay baa lagu cadaabaya wuxuu isku dilay hadii uu mesela qofku isagu tooriis galiyo tooridii baa lagu cadaabaya haduu sun iscabsiyo suntii baa lagu cadaabaya haduu bam isku xidho bamkii baa lagu cadaabaya qofku wuxuu isagu isku dilay ayaa lagu cadaabaya waa qofkii isagu isdilay kaliya ka waran marka kii isagiina isdilay intaas oo kale oo bulsho oo muslimana garaaftay uu ka sii dambi badan yahay marka waan ka hadalnay marar fara badan markii koobaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad ma aha laakiin waxay u baahan tahay wax la yiraahdo collective effort oo wax badan oo kala duwan inta la isu geeyo culimadu qaybaheeda kala duwan iyadoo hal group loo fiirinin hal majmuuc loo fiirinin inay cid waliba tiraahdo wallahi waxan waa khatar
bulshadu khatar ku yahay diintu khatar ku yahay wadanku khatar ku yahay ummadu khatar ku yahay bini aadmigu khatar ku yahay marka waa inaan ka hortagno oo caqligaas aan la wada nimaadno taasay u baahan tahay marka masalada culimadu way ka aamuseen anigu qanaacada ma qaba xaqiiqatan in badan baan yaan ka hadlay meelo publiga meelo fara badan haddana waan sii wadaynaa waa qayb ka mida weeyaan culimaduna inay qaybta aan wada qaadano maxaa jira waxaa diin waajibkana saaran uu yahay in dadka wanaagga loo sheego xaqana loo cadeeyo xumaanta iyo baadilkana dadka looga digo baadil ka xuni ma jiro qofka muslimka oo dhiigiisa lagu banayso magac diineed qofka muslimka ah oo dhiigiisa lagu banaysto magac diineed baadil ka xuni ma jiro nabigu waa kiilaha la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd aniga markaan dhinto gadaashay gaala islaynaysa oo luqumaha iska goynaysa oo dhiigooda isbanaysanaysa ha noqonina nabigu waa kiilaha sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun qofka muslimka ah oo la caayo la aflagaadeeyo waa mafasq yani waa dhaca ka bax weeyaan isaga oo la dilaana gaalimay keenaysa yani u fiirso marka waxay u baahan tahay mas'aladan in si adag looga hortago la yiraahdo meeshan wixii ka dambeeya waa in uu mujtamaca muslimka culimadiisa waxgaradkiisa cuqaashiisa bulshada oo dhan waa inay tiraahdo intan ha ku ekaato adigoo iga raali ah imaam sheekh cabdiraxmaan allaha naxariistii janno siiyo sheekh cabdiqaadir nuur faarax waxaa ka horeeyey professor sheekh axmed cabdiraxmaan dadku waxa ay leeyihiin ma aha culummadii ugu sarreysay muwaacidiinta ahayd oo diinta heerka sare ka gaartay waa wada liist bay ku jiraan maalinba midbaa la dilayaa marka arintu ma aha mid ku eg sheekh cabdulqaadir nuur iyo sheekh axmed cabdiraxmaan oo horey loo diray rabbi naxariistii janno labadoodaba ha siiyo marka liistigaas arintiisa wuu soconayaa culimo badan baa hadda afka lagu hayaa qaarkood waxayba la aamusan yihiin yani waa is ilaalinayaan baa la leeyahay marka liistigaas iyo dadkan banaystay inay indhaha tiraan gaar ahaanna taargid garaynaya cid walba oo caalin ah oo u arka in fikirkooda uu khalad yahay ummadda Soomaaliyeed taa maxaad uga sheegi lahayd arintaas waa su'aal fiican weeye labada sheekh kaliya ma aha culimo kale ayaa lagu laayay Muqdisho kuwa kale lagu laayay gobolada dhexe meelo kamid ah waxaa muhiim ah inaan isweydiino afkaarta noocan oo kale tii hore ku noqonaysa markaan rabno inaan wax daaweyno galbeedyo dhakhtar markaad u tagto jirra ku hayso dhakhtarku daawo isaga ka qori mahayo baaritaan buu sameeynaya wuxuu ogaanayaa isku dayaa inuu ogaado jirradan maxaa keenay kadibna wuxuu raadinayaa xalkii jirradan inagu marka waxaan u baahannahay inaan isweydiino war waxan maxaa keenay markaan aan mushkilada ku heshiino wixii keenay xalkii waan raadinaynaa laakiin haddaynan sideedaba ogaaninba mushkiladan goorta inagu timid iyo meeshay ka timid haddaynan ogaaninba oo noqoto kaliya caadifo ku salaysan markuu dib nagu dhaco inaan yara hadallo wax weyn ma xallin karno nin qoray kutub badan buu leeyahay laakiin kutubtiisa mid kamid ah wuxuu ku qoray ummadu hadday doonayso inay mushkilad ka baxdo waxaa muhiim ah inay laba su'aalood marka hore isweydiiso mushkilada ay rabto inay ka baxdo goortay gashay iyo say u gashay u fiirso marka anagu marka waxaan u baahannahay war mushkiladan aan la gubanay ee dadkii ku nool geeska Afrika ee Soomaalida ah ee muslimiinta ay masaajidii Ilaahay ku tukan la yihiin mushkiladan culimadii target garaynaysa ee laynaysa mushkiladan dadkii wax garadka ah dhakhaatiirtii aqoon-yahanadii isimadii bulshada indhaheedii muxuu ahaa baabiinaysa mushkiladanu xaggay inaga timid goormay inoo timid say inoogu timid inta markaan isweydiino sida looga bixi karo way sahlantaa laakiin intayna taa isweydiinin way yara adkaanaysaayo waxaan sameeynaynaa wixii la oran jiray muxuu ahaa dhibka wixii keenay daaweyn meeyna dhibkii baa isku dayna inaan celcelino sheekh cabdiraxmaan taasi dadku maanta dadka dhibaatada u geysanayo waa sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel oo ayaguna Soomaali ah laakiin dadku waxa ay leeyihiin dhaqankayaga iyo culimadayadu dhaqankan ma lahaan jirine meeshan gacan shisheeye oo naxariis daran ayaa ku jirta marka maxaad u malaynaysaa in aad ku xallin kartid haddii culimada dadka sheeganaya ee ka tirsan dadka nabadiidka ee gacan shisheeye ay soo adeegsanayso mushkilada gacanta shisheeye lafteedu waxay u baahan tahay in si kala loo dhigo nin la oran jiray Malik ibn Nabi ayaa wuxuu qoray yani kutub badan buu leeyahay kutubtiisa mid kamid ah wuxuu ku qoray ummad lama gumaysto haddayna ummadu diyaar u ahayn in la gumaysto iyadu taa waxaan ka wadaa kuwan xataa sheeyuhu ku shaqaysanayo asbaab baa keentay inuu sheeyo ku shaqaysto
asbaabtu waxay ka mid tahay waxa jiradan aan rabno inaan ogaano anigu marka dadka qanaacada badan ku qaba ma ahi in mushkiladeena ay cid mar walba ajnabi ka dambeeyo mushkiladeena xoogeedu inaga way ilaa ay dadku marka qaataan iyagu wax la yiraahdo xilka iyo responsibility-ga oo inagu aqbalno war mushkiladan inaga asal u ah markaan inagu marka is ogaano inaan asal u nahay cidda kale dib inagu haysa xataa waan ogaanaynaa laakiin haddaan inagu mar walba intaan inkirno sidii qofkii isaga oo TB-du hayso oranay hargabay ahay ee TB ma hayso oo isagu diidaya inay TB hayso inagu jiran oo u jeedno waxaan jiran ee mashaakilka ah ee dadka laynaya inay ilmaheena yihiin inay dhalinyaradeenna yihiin inaan inagu laga yaabo afkaarta laga yaabo aan ku akhrinay inagu afkaartan inaan u sheegno inagu afkaartan haddaan dhahno in ajnabi baa dhibkan ii wata mushkilada xalkeedii ma helayno ani marka waxaan qabaa mushkilada asal waxa uu inaga bulshada Soomaaliyeed ba asal wadaadadu qayb bay ka ahaayeen haddana ka yihiin waxaan rabnaa marka inta la si degan loo fariisto si miir qaba loo fariisto inaan xisaabino oo wax isweydiino dib ugu noqono xageebu waxaan ka yimid ayna khalal war khalalka iyo xagee arintu iska qaban laadahay xagee arintu isaga iman laadahay inaan isweydiino laakiin hadaan u saarno mar walba shisheeye ayaan daraway maxaa jira waxaan noqonaynaa dadaan iyagu diyaar u ah inay mas'uuliyadooda qaataan ayaan noqonaynaa Sheekh Cabdiraxmaan waxa tahay caalim madaxii isku xirka culimada Soomaaliyeed imaam baa tahay dawladan uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo kulli maantana aad u aragtid iftiin weyn oo ummadda u soo baxay ciladaha hortaagan tala ahaan iyo diin ahaan iyo aad Soomaaliyeed u jeedin lahayd su'aal aad u fiican weeye marka hore waxaan rabaa inaan dhaho xilkaas horta Allah haydin fudayo waa wax wanaagsan weeye in loogu duceeyo xilka inuu Allah u fudayo subhanahu wa ta'ala marka labaad arrin kale oo muhiim ah waa tan waxyaabaha ugu culus ee hor istaagi kara koo waxa ka ah hadii amniga iyo nabadgelyada wax laga qaban waayo marka waxaan rabaa oo iyagana kula talin lahaa awoodoodu intay tahay inay isugu geeyaan nabadgelyada in wax laga qabto maxaa jira markii nabad la helo nolol baa la helayaa markii nolol la helo waxa la helayaa waxa la yiraahdo horumar baa la helayaa markii horumar la helana hadii bini aadamku deganaanshihi uu raadinay ayuu helayaa marka arintaas oo nabadgelyada inay ku dadaalaan waa muhiim say ugu dadaalayaan waxa la rabaa cid kasta oo nabadgelyada danaynaysa nabadgelyada qiimeynaysa nabadgelyada qiimaheeda og inay yiraahdaan waxaan u baahanay taladiina waxaan u baahanay aqligiina waxaan u baahanay nasiixadiina taas waa mid weeyaan mid labaad waxa loo baahan shacabka Soomaaliyeed guud iyo dibadba inuu taageero oo gacan ka geysto arinta muxuu ahaa dawladdan iyo sidii ay u hana qaadi lahayd waxa aad ii soo jiitay madaxweynuhu markuu yimid Minneapolis khudbadii uu habeenkii uu akhriyay waxa kamid ahayd Soomaalidu waxay tiraahdaa buuli waxa hooyada u roonba ilmaha caloosha ku jirana u roon taa macnaheedu marka waxa weeye waxa qabiilkan u roonba qabiilkana u roon waxa gobolkan u roonba gobolkana u roon waxa adiga ku roonba anigana ii roon dadku marka inay intisaa wax u fahmaan ay ogaadaan war maslaxa isku maslaxaynu nahay isku dambaynu nahay isku doon baan saaranahay waxaan u baahannahay marka inaynu doonteena wada badbaadino inaynu nabad ka wada shaqeyno inaynu isu dulqaadano inaynu isu adkaysano ayaynu u baahannahay iyagana waxa laga rabaa dadka khibradda leh dadka aqoonta leh dadka lagu tuhumayo ama loo malaynayo Soomaalinimada dadka inay in fara badan isku xeeraan tala ka qaataan muxuu iyagana saas laga doonayaa Sheekh Cabdiraxmaan xaq diiniyan ahaan dawladani waxa ay jirtaa muddo ka yar 6 bilood ilaa hoggaanka sare ee madaxweyne Xasan maxaad ummadda Soomaaliyeed dad waxa jira yani abuuriyan ba maaragtay wixii yimaadaba ama maaragtay wixii ummaddu ay isku raacdaba xogaayir mucaarada iyo wax ku maaragtay ilaahay baana xikmad bini'aadmiga lagu abuuray marka dadka Soomaaliyeed ee yara dhaliilaya dawladdan cusub oo kaleeto ayagu maxaad kula talin lahayd ani waxaan oran lahaa sideeda ahaan horta mucaaradadu dhib ma leh laakiin waa inay noqoto mid wax dhisaysa wax diminin arinta waa muhiim weeyaan mucaarad waxaan ka wadaa hadii aniga waxaan sheegaba la ii nacamlay ani laftiga khaladkayga ma arkayo laakiin markii la yiraahdo waxba yara khaldan meesha waxaan ka toosi meesha sidan ka yeel waxaan arkayaa suura kan arkayaa marka mucaaradadu ceeb ma aha waxa ceeb in wax la dumiyo waxa ceeb ah in aan markaan qalinka inta dhigo waxaad u baahantahay in mid kale lagu sii daro soo hore ugu sii socdo laakiin hadaan qalinkiiba baabi'iyo
eber baan dib ugu noqonaynaa marka waxaan u baahannahay waxa weeye mucaaradadu inay noqoto mucaarado wax dhisaysa mucaaradadu inay noqoto mucaarado maslaxada ummadda ka talinaysa mucaaradadu inay noqoto mucaarado danta bulshada ilaalinaysa taas inay noqoto laakiin hadday u yara ekaato qofku aniga jagan la ima siinin sidaa darteed wixii ceeb iyo dhilina yaan u raadinayaa hadday mushkiladu noqoto inaan mararka qaarkood idoon xataa aan ahayn wax saxa inaan adeegsado sheeko qabiil si aan ummadii iyo dantii guud ee weyneed aan u baabi'iyo waxaan u malaynayaa taa hadda bulshaduna inay ka kori doonto oo muxuu ahaa aan dib dambe la aqbali doonin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku idhaahdo laba arrimood koow dulqaad haddaan dhahno wax walba waa inuu durba xallismo dadkan waxay yidhaahdaan Roma is not built one day Roma laguma dhisin hal maalin wadankani wuu burburay wadanka oo dhan wax nidaam ah ma jirin fiiri military ma qabno boolis ma qabno jaamacada ma jirin saasa yani wixii qaab dhismeedkii ummadeed oo dhan baabaa inuu marka soo dhismo waqti bay u baahan tahay marka waxay u baahan tahay inta waqti la siiyo in la iskaalmeeyo in la istaageero in la soo dulqaato ayay u baahan tahay taas waa qayb marka waa dulqaad weeyaan qaybta labaadna waxaan doonayaa bulshadeena waxaan mar badan aan ku idhaahdaa culture-ka warka ama xataa dagaalka afka inaan bedelo oo dagaal nabadeed ku bedelo hada adaan kula kaftamaya markaynu meelahan joogno qofka dad ku tahay xageed ka shaqeysaa wuxuu ku oranayaa shaqo xun oo meeshan aan ka shaqeeyaa war meesha aad noloshaada ka soo saartay maxaa xumeeyay iskuul ma aadaa iskuul xun oo meeshan aan aadaa fiiri dawladii xumayd gaarigii xumaa waxa markaad wixii wada xumaanayaanba laakiin markaad tiraahdo shaqo fiican baan ka shaqeystaa iskuul fiican baan aadaa noloshoodu way fiican tahay dawladdu way fiican tahay laakiin waxba ka dhimana wixii ka dhimana hal lagu daro yani ana marka waxaan rabaa xataa afka hadalka laftiisa in lagu bedelo hadal wanaagsan oo dawladda loo duceeyo ilaahay inuu maslaxada ummadda waafajiyo khayrka waxay dan ugu jirto ummaddan ilaahay inuu waafajiyo inaan noqono af iyo hadal oo xadaari ah oo marba la yiraahdo optimistic ama xagga wanaagsan wax ka fiirinaya marar farba inaan taa ku dadaalo ayaan u baahanahay dhaliil ma dhamaanayso bini aadamka kaamil ma ah wax kaamil waa Ilaahay cirka dhulka abuuray subhanahu wa ta'ala marka in la soo dulqaato la soo adkaysto waxa ugu baahan ugu badan waa sida dawladdu waa inay dhaliisha aqbasho waa in la naqdiyo ogolaadaan waa in la yiraahdo waxba idinka khaldana wax wanaajiya waa inay ogolaadaan marka tala loo soo jeediyo inay ogolaadaan iyagana waxa laga rabo waa sidaas weeyaan waxa kale oo laga doonayaa bulshada hadaan dhahaan oo dawladdu sidan ha yeesho dawladdu waa aniga adiga moogta dawladdu wadankan hadda aan joogno Mareykanka aragtay awoodiisa dawladdu waa shacabka weeyaan marka shacabku wuxuu u baahan yahay inuu institutionadiisa isagu dhiso ilaaliyo ayuu u baahan yahay dawladdeena ay noqoto injiinkii ama motorkii dadka ka haynay inay noqoto marka iyaga waxaan ka rabnaa inay wax la yiraahdo vision cad ay dadka u keenay yiraahdaan waxaasan doonaynaa wadadaasaan rabnaa in loo maro taladiinaan u baahannahay aqliinaan u baahannahay xooggiinaan u baahannahay maskaxdiinaan u baahannahay xoolihiinaan u baahannahay saasa laga rabaa dadkiina waxa laga doonayaa waxa ay tilmaameen wixii shaqeynayana in lagu gacan siiyo waxaan shaqeynaynina in lagu yiraahdo waxaan hadda inooma shaqeynayee aan si kala u dhigno sidaas la doonayaa ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa dhinaca dawladda waad ka hadashay ducadaadana dawladda Allah u aqbalaan ku leeyahay Sheekh Cabdiraxmaan gabagabadii culimada Soomaaliyeed baad moodaa xoogaa dhinaca farta lagu godayo ayagu maxaad ugu dambeyntii kula dardaarmi lahayd waxaan kula dardaarmay adoo u marinaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad waxaan u dardaarmi lahaa culimada oon ku oran lahaa culimadu waa bulshadii indhaha waxaa la yiraahdaa bulshada haday laba qolo u hagaagto bulshadaas way hagaagtaa qolada koobaad waa culimada qolada labaadna waa dadka sultada iyo xukunka haya weeyaan culimada marka waxaan doonaynaa iyaga laftooda waxaan ka rabnaa koow culimadu inaysan diinta siyaasadaynin oo diinta sida alla uu yahay dadka u sheegaan qodobka koobaad weey qodobka labaad culimada waxaan ka rabnaa maslaxada guud ee ummadda inay dadka baraan oo ilaaliyaan oo dadka marka masaajida wax looga sheegayo marka masaajida laga wacdinayo marka masaajida looga muxaadareynayo marka kitaabka la akhrinayo danta guud bulshada wada noolaanshaha isu dulqaadka sabirka iscafiska isjeclaanshaha culimadu inay ay arinta dadka baraan inay ka daayaan culimadu kala qoqobka iyo kala xirxirka qolo wala oranaysa anaga kaliya ayaa saxan ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabiila rashad aniga ma cid kale xaq ku taagan ma jirto falsafadaas inay culimadu dadka ka daayaan oo islaamku uu inagu filan yahay uu ina wada deeqaya
ودينتي إله سبحانه وتعالى أنيق يا أذيق يقعد كستو كبدنيه مركا إن دينتن إلهي دتك واسع وقدر أن وذجلنا أينان دينتي كوب أنت كل شو بنير أنا أورانين أنيق سان وحوها البيجي أما سان أركو قف كانوا أركن مسلم معها دينتي صح معها إن وذادوا أرنتها يبدلان ويجوجيان أو إسلام واسع أو إنه قفلا أو ولا لكنا هاي أو إن دتك كا أي بران وحكلوا مهمة مرحلة هذا لو جرو مرحلة هذا أذق ويان وحاجة مثل النيري الرجال ثلاثة رجوا صدح رجل صنعة الأقدار ورجل صنعة الظروف ورجل صنعة الأعداء قف قدرك إلهي بسميه وأنبياء إلهي سبحانه وتعالى يعني أنبياء إلهي كرتي أي أنبياء لماذا يكون المجرد إلهي بدورته سبحانه وتعالى قفنا وحوي عذو وسميه مركو أركو أمدي سي أو بابا أو عذو باب إنيو أيو سحل قامية مركز سوكعية قفنا الظروف تاع سمعيسة هذا وحن كجرها مركا ومدانو ظروف أدق بي كجرتها وحي أبا هانتهي مركا ضد أقون له كرتي له ومدى داعضوة ومدى دانتي مسلحيدي كتاليسا علماء إني سدان نقدان بالغ الدنيا إني أمد ساء كهجاميان بالغ الدنيا وحكوا لقى ربع علماء وحن لسان إني وحكوا دران إنسان الدمين تقيب كنقنين إني الدمين تقيب كنقنين وحن لسان أي وحكوا دران يا لقى الدنيا إن واحد لسان أن سيقر حنو إني قيب كنقدان يا لقى الدنيا حدو حتى وحول الليل ليه وحال الربع كامل وإلهي إن قدرنا إن بري عقد كلا إيمان إن كلا كدري بري عد كلا إيمان إن كلا كدري سلاسة وحوس عنيسة مركب علماء كونسبت جاس أما أرنتها إن دتك يجون بران هي حقيقة لو غفر ليها لجنة الدنيا mahadsanid kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif maxamed madaxa hay-adda isku xirka culummada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka oo maanta barnaamijkaasi diiniga iyo waanooyinka iyo tusaalooyinka intaba isugu jiray nagu siiyay haddaanu nahay telefishinka qaranka Soomaaliyeed xafiiskiisa ku yaala masjidka weyn ee Daarul Hijra bartamaha magaalada Minneapolis barnaamijka waxa idin daadihinayay anigoo ah Shiro Warsame Galbeete waxa barnaamijka inoo soo saaray madaxa telefishinka qaranka ee dalka Mareykanka saaxiibkay Liban Hussein inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono aniga iyo Sheekh Cabdiraxmaan imaamka iyo Libanba waxaanu idinkaga tageynaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi iyo kulanti dambe oo xiiso leh insha Allah